waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida lagu soo gabagabeeyay qiimeyn muddo 4 maalmood ah ee uga socotay halkaasi hay'adaha amniga iyo maamulada 20 xaafadood ee ay ka kooban tahay Jigjiga. Saad Cabbaas ayaa nooga soo waramay. munaasabadan oo lagu soo afmeerayay qiimeyn muddo 4 maalmood ah uga socotay hay'adaha amniga deegaanka iyo 20 xaafadood ee maamulka magaalada Jigjiga uu ka kooban yahay ayaa lagu soo gabagabeeyay madasha kulamada ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ugu horeeyay hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda dawlad deegaanka Soomaalida komishinka booliska dawlad deegaanka Soomaalida Maxamed Cali maayirka magaalada Jigjiga Cabdifataax Ibraahim hoggaanka nabadgelyada maamulka magaalada Jigjiga iyo dhammaan hoggaaminta 20 xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Jigjiga hoggaanka nabadgelyada dawlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xashi Qaasim oo munaasabadan ka hadlay ayaa dardaaran iyo natiijadii ka soo baxday qiimeyntan uu soo jeediyay hoggaaminta waxaana carabka ku adkeeyay in la wanaajiyo wada shaqeynta bulshada hay'adaha amniga iyo maamulka xaafadaha kala duwan si uu yidhi looga hortago waxyaabaha amni darrada keeni kara sida China group-yada iyo mandoriyaasha ay ka mid yihiin xashiishada hoggaanka ayaa sidoo kale u sheegay mas'uuliyiinta ay qiimeyntu u dhamaatay in ay ka hoggaamin ahaan ay ku garab taagan yihiin hawlaha iyo adeegyada ay bulshada u hayaan hawsha bulshada haysan waxa ka duwan hawlaha kale ee xaafadaha kale hayaan magaalada Jigjiga waa xudunteeni weeye waa xuduntii dawladda deegaanka Soomaalida mar haddii Jigjiga tahay xudunteeni oo laga dheexanayo ummad ahaan meeshayna marayna maamulkeena siduu yahay dhaqanka siyaasadda siduu yahay amnigeena siduu yahay horumarkeena siduu yahay mar haddii magaaladiisa laga dheexanayo dee shaqadii magaalada waxay ka socotay ee saldhig u ah shaqada guud ee magaalada waa xaafadaha Soomaaliya xaafaduhu marka doorka ay ka ciyaarayaan horumarintii magaalada oo noqonaysa dee horumarkii guud ee ummaddeena waa door aad iyo aad muhiim ah shaqadaas markaad haysaan dee waa shaqo ummaddeena ay ku faanayso weliba duruufo culusna mararka qaarkood aad qabanaysaan marka inaad shaqada adag haysaan ayaa ka soo baxday qiimeyntii iyo wadatashigai arrinta labaad ee ka soo baxday waxaa weeye lagu dhuftay ugu muhiimsanaa wada shaqayn la'aanta China group-ka xashiishada iyo dambiyada la xiriira amni darro meelaha qaarkood ka jirta xisaabtan la'aan adeegii bulshada la siinayay oo aan hufnayn marka dhaliilahaas in la saxo waa laga maarmaan waxaa kaloo soo baxaysay inay jiraan dhaliilo kale oo khaas u ah meelaha qaarkood oo u baahan in wax laga qabto taasna waa marka isla xisaabtanku waa muhiim taas marka waan sii wadaynaa si meel sheegay haddii ilahay idmo annagana waxaan ugu xisaabtanaysaan in aanu nahay adeegayaal idin garab taagan idin jecel keliya aan odhanaynin uun shaqada hal qabtee dee xuquuqdiinnii iyo sidii loo qaban lahaana idinku taageeraya sidoo kalena intii ay socotay munaasabadan ayaa waxa si wada jira la iskula qaatay sidii amniga caasimadda deegaanka loo sii xoojin lahaa isla markaasna meel qura looga soo wada jeesan lahaa ilaalinta iyo xasiloonida caasimadda deegaanka si looga hortago wax kasta oo lidib ku ah amniga guud ee caasimadda dhankooda qaar ka mid ah saraakiisha iyo maamulada qiimeyntu u soo dhamaatay oo la hadlay RTN TV ayaa ballan qaaday dhankooda inay ka wada shaqayn doonaan hay'adaha amniga iyo maamulada heerarkooda kala duwan oo kaashanaya shacabka sidii amniga caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga loo sii adkeyn lahaa isla markaasna wax walba oo lidib ku ah ay meel uga soo wada jeesanayaan Saad Cabbaas Ali RTN Jigjiga.